guddiga gacanta ku haya wadada wadaagsin ayaa ka warbixiyay halka uu maraya dhismaha wadadaasi iyagoo sidoo kalena ugu baaqay jaaliyada dibadda inay ka qayb qaataan. kulankan oo magaalada Gaalkacyo ay ku yeesheen guddiga gacanta ku haya wadada wadaagsin ayay uga warbixiyeen halka uu maraya dhismaha wadadaasi. guddigan ayaa sheegay in wadada qayb ka mid ah la hagaajiyay balse inta ugu badan ay dhiman tahay loona baahan yahay in degdeg loo hagaajiyo. wadada markay ka soo kacdaan laga soo kaco Jariiban ilaa Balebusle waxa lagu qiyaasaa 90 kaas ilaa hadda waxa laga qabtay waa 12 kilomitir 12 kilomitir waxa dhisay hay'ad la yiraahdo DAI oo Mareykana oo USAID-ka ayay hoos tagtaa waana si fiican uga shaqeysay 12 kaas shan waxay ka soo bilaabanaysaa yabar Jariiban waxay soo aadaysaa dhinaca Balebusle shan iyo barna waxay ka bilaabanaysaa Balebusle waxay aadaysaa dhinaca Jariiban waxa qorshaha ku jirta saan la socdo shan iyo bar kale inay ku daraan oo 2 bar xagga iyo 2 bar xagga waxa kale oo iyana jira qolo UNDP da oo iyaduna dhowr kilomitir 4 kilomitir meesha ka sameynaysa hadda qadaraaskeedii la bixinayo meel ugu daran oo booc ay yiraahdaan oo markii sahan lagu tagay la isla gartay in iyadana laga dhigo marka la isku daro waxay noqonaysaa waxa la filayo 12 oo 5 lagu daray waa 16 afar ku dar 20 baa la filayaa in dhaqso hawshaas u dhamaato inta soo hartay 9 kale wax laga qabtay wali ma jirto aad bayna u liidataa wax qabad degdegayna u baahan tahay waayo dhaqdhaqaaqii iyo ganacsigii iyo horumarkii iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadkiiba kulli ku xiran waxaanu codsanaynaa cidii aakhiradeeda iyo adduunkeeda meeshaas wax ka qabanaysa waxaanu rabnaa walaalayaalow in la kula shaqeeyo codsi baanu geysanay wixii ka qayb qaatay meeshaas 20 kilomitir ah waxay ahaayeen gabdho UK jooga oo si soo xilqaamay dad jooga gobolkan Gaalkacyo ayana isxilqaamay shirkadaas Ilgaar iyo dadka kaleeto oo muwaadiniinta oo daneynayay wadadaas inay wax noqoto daryeel oo ayana wixii ku aadana ka qaadatay waxaan codsanaynaa oo u gudbinaynaa dadka arintii maqashay meediyada laga sii daayay oo ahayd inay wax ka qabatay neesho waxa weeye hay'ad jidha hadday wax nala qabanayso diyaar baanu nahay cid allaale ciddii wax qabanayso oo ka qayb qaadanaysa diyaar baanu nahay saldhigiisu yahay magaalada Gaalkacyo inay xogta ka soo doontaan wiilasha dhalinyarada dadaalayso oo ayaguna sameeyo barnaamijkana waxaan baalki kula talin lahayn in xogta meel munaasabka ah mudan ay ka raadiyaan aad bayna baalki u dadaalayaan laakiin dadaalkoodu waxaan ku qiimeynaynaa markii mira dalkeeda iyo waxa ay soo saaraan ma ku qiimeynaynaa waxaan kaliya rabaa inaan inta ku daro account-ka guddiga ka furan shirkadda baalkii xawaalada amal inuu yahay 53 waa ku celinayaa 53 annagu intii gudaha ahayd lacag u dhaxaysa 100 ilaa 150 kun oo dollar ayaa hadda ku jirta waxaana go'aansanay ilaa aan wax bilowno oo waxa aan bilowno ilaa aan wax bilowno inaanan cidna u saban xataa kharash garaysa ayaan go'aansanay cid kastana wax allaala wuxuu keenay iyo wuxuu baxshay waxaan rabnaa haddii la yiraahdo inaan ku soo dhigno diiwaankan isla aan baalkii maxaa saxaafada u soo gudbino si wal qof kasta ula socdo waxa uu waxay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa magaalo yar oo ku taala dalka Sweden iyo magaalo yar oo ku taala dalka UK oo ayagu qolana 5 kun oo dollar naga soo gaartay qolana 3 kun oo dollar naga soo gaartay iyo Kuwait oo lacag kun iyo boqol naga soo gaartay wax dibada intaas naga soo gaartay aad baan ugu mahad celinaynaa inta kalena waxaan rabnaa oo diasporada Mareykanka lacag baan ku dhiganay Yurub lacag baan ku dhiganay Arabaha lacag baan ku dhiganay Afrika lacag baan ku dhiganay guddigu guddi jira weeye guddiga deegaanka dhan guddi ka kooban weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahi kariim annagana Allah noo fududeeyo sida aan u kharash garayn lahayn iyo baalkii maxaa saan hawsha ugu filinahay idinkana Ilaahay waxaan ka rajaynayaa waa shaqo tijaariya
waa sadaqa tijaariya in aad muxuu ahaa aad ka soo qayb gashaan. burburka wadada wadaagsin ayaa waxaa cabasho xoogan ka muujiya ganacsada iyo gaadiidleyda isaga kala goosta deegaanada ay marto. gaadiidka xamuulka ah ee adeegsada wadada wadaagsin ayaa 24 saac isaga kala socda Gaalkacyo ilaa Garaacad, halka kuwa yaryarna ay u socdaan 8 saacadood. khabiiriin dhinaca wadooyinka ayaa saadaaliyay in wadada wadaagsin haddii la hagaajiyo gaadiidku ay isaga kala gooshi doonaan 2 saacadood, ganacsiga gobolkana uu furfurmi doono. Saciid Cabdullaahi Kulmiye Nadaara, Somsad, Gaalkacyo.